deegaanka Xararan waxa maanta ka dhacday xaflad ballaaran oo loo qabtay isla markaana lagu sagootinayay ardayda dugsiga sare ee Intisaar Secondary School ee deegaankaasi Xararan kuwaasi oo dhameystay imtixaankii sanad dugsiyeedka 2014 ilaa 2015 waxaana xafladaasi ka soo qayb galay waalidiinta dhalay ardaydii halkaasi maanta lagu sagootinayay sidoo kale waxgaradka deegaanka Xararan macallimiin iyo marti sharaf kale ayado quraana kadib waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay macallin aadan oo ah maamulaha dugsiga sare isagoo ka warbixiyay taariikhda iskuulka degmada Xararan dugsiga maxaa dhacday magaalada Xararanka sidoo wada ogsoonay wadadka inta badan taariikhdiisa ay hayaan ama ardayda ay ka baxday ay fadhiyaan maxaa xilligaas ama xilliyo ka horeeya waxa la aasaasay konton sano ka hor ayaa dugsiga hoose dhexe laga aasaasay magaalada Xararan oo marka taariikhda lagu qiyaaso inay ahayd marka la sheegay inay ahayd 1964 haddaba markii iskuulka xilliga la aasaasay ardaydii ka baxaysay dugsiga dhexe ayaa waxay la kulantay caqabado ah raasashadii dugsiga sare dhibaatada markii la arkay ka bacdi ayaa dadka deegaanka diasporada iyo waalidiinta iyo guddiga waxbarashada ayaa waxay isla garteen in la aasaaso marka maxay dugsi sare ay lahayd marka waxbarashadu ujeedadan ma loo qabtay xafladda ayaa waxay ahayd marka si loo soo xiritaanka dugsiga sanad dugsiyeedka 2014 si loo soo xiritaanka dugsiga ayay ahayd waxbarashada iyo qiimaha ay leedahay waxbarashadu hadda waxaynu dhamayn karnaa qiimaheedu waxaynu hadda dhamayn karnaa maaha laakiin sidaynu wada dareensanahay Soomaalidu waxay ku maamahada aqoon la'aan waa iftiin la'aan qofka haduusan waxba aqoonin adduunka ma joogi karo adduunkana kuma noolaan karo dugsigan sare waxa hindistay oo aloostay ilaaba arrin kale gabadha Hindisaar aad baan ugu mahadnaqayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa leeyahay awrba ka horeeyo gadkaas kaleeyahay dadku isku dayanaya kuwa ka dambeeya waxaan iska rajeynayaa sida quruxda badan leh ayana uga soo baxeen waxbarashadoodii inay yana u higsadaan markaynu furaynay dugsiga sare ee Xararanka ee aynu ku furaynay isagoo aan inoo dhisnay guri inaynu go'aan ku qaadanay inaynu ka kala dul saarno way suurta gashay wata midhihii ka soo baxay maanta ay muuqdaan ee ardadii ka muuqdaan ee magaaladii ka muuqdaan ee dugsiga ka muuqdaan ee macallimiinta ka muuqdaan waxaan leeyahay bulshooyinka reer Xararan haday dabada jirto iyo haday gudaha jirto aan ka sii kordhin haddaan ka warramo dugsiga kani taariikh weyn buu ku leeyahay degmada Buuhoodle waayo waxaan u malaynayaa waa dugsigii labaad ee laga sameeyo magaalada Buuhoodle waayo dugsiga ugu horeeyay waxaan u malaynayaa inuu Buuhoodle gudihiisa ahaa elementary bay labadaba ahaayeen 64 baa dugsiga la sameeyay magaciisana waxa la yiraahdaa Axmed Jaamac inagu hore gabadha taabtay dugsigan la yiraahdo Intisaar Secondary School gabadhaasi wax weyn bay inagala degtay intaasi kadib waxa shahaadooyin la gudoosiyay ardaydii ku guuleysatay kaalmaha ugu sarsareeya kuwaasi oo dareenkoodu aad u kacsanaa ugu dambeyntii iskuulka Xararan ayaa wuxuu leeyahay taariikh ballaaran waxaana ka soo baxay siyaasiyiin badan oo imika laga yaqaan inta badan deegaanada Soomaalidu degto Cabdi Casiis Aadan Jaamac Kalsan TV Buuhoodle